Maxkamadda darajada koowaad ee magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa maanta la soo taagay odayaal iyo siyaasiyiin xukuumadda Puntland ku dhaliilay howlaha imaaraadka uu ka wado deegaanada maamulkaas. Odayaashan iyo siyaasiyiintan ayaa muddo bil ah ku xirnaa xabsi ku yaala magaalada Boosaaso waxaana lagu eedeeyay qodobo ay ka mid yihiin ku xadgudub sharciga iyo kala dambeynta Puntland ayna gacanta kula jireen abaabul ka dhan ah maamulka Puntland iyo kicin dadweyne. Maxkamaddu waxa ay dhageysatay garmaqalka xeer ilaalinta waxaana ay mudeysay in kiis dacwadeedka loo haysto siyaasiyiintan iyo odayaashan mar kale maxkamadda ay dhageysato maalinta Axadda ah ee soo socota. Dadka maxkamadda Boosaaso la soo taagay waxaa ka mid ah siyaasiga Muuse Cali Jaamac oo hadda ka hor la horgeeyay maxkamadaha Puntland kadibna la sheegay in madaxda sare ee Puntland cafis ay u fidiyeen dowlad goboleedka uu hogaaminayo Siciid Cabdilaahi Dani ee ka arrimisa deegaanada Puntland ayaa dadka dhaliishan xukuumaddiisu waxa ay tilmaamaan in deegaanada Puntland ay ka jirto caburin siyaasadeed balse markii uu ahaa murashaxa ololihiisa qayb ay ka ahayd in xorriyatul qowlka uu dhowri doono.